Khalid waan ku soo dhaweynayaa mar kale inaad nagala soo qayb gashay barnaamijka caafimaadka sidii ballantu ahaydna mar haddii aynu bulshada ku baraarujinay khataraha ku xeeran dhiigkarka xilliga uurka dhaca iyo halisaha uu ku hayo hooyooyinka xilligaasi uu asiibo waxaa lama huraan noqotay iyadana in xanuunka macaanka oo isaguna marka laga yimaado macaanka caadiga ah ee habnololeedka laga qaado ama hidaha la isugu gudbiyo oo qaab loola macaamilo kan kale ee xilliga uurka dhacaya iyo dhibaatooyinkiisa oo waliba bahda caafimaadka in badan oo kamid ay aaminsan yihiin in mararka qaar uu khatar badnaan karo dhiigkarka ugu horeyn waxaan jeclahay bal horta muxuu yahay macaankan xilliga uurka dhaca bismillaah axmed ismaan batuun iyo bahda tv-gaba aad baad mahadsantihiin ku faraxsanahay inaan mar kale barnaamijkan idinkala soo qayb galo oon ka qayb qaadano wacyigelinta bulshada macaankan xilliga uurka dhaca waxaanu odhan karnaa wax weeyaan khalkhal ku imanaya ama sidii uu jirku u qaadanayay ama u dheefshiidayay baashan loo yaqaano glucosta marka waa metabolic disorder adugu khalkhal ku dhacaya glucostaasoo jirku uu isticmaalayay isuu dheefshiidayay sonkortii iyo waxyaalihii tamarta ka samaysnaa siduu sonkorta jirku u isticmaalay ama u kharash garaynayo ayuu khalkhal ku yimaada weeyaan kaasoo isna ah waxyaabaha ugu badan ee ku dhaca dumarka uurka leh tusaale ahaan adduunka waxaa la sheegaa inuu gaari karo ilaa 17 boqolkii dumar ee uur la 17 ka mid ah inuu ku dhici karo inkastoo wadamada iyo goboladu ay ku kala duwan yihiin inaguna dhacdo saxa aynaan ka hayn Somaliland laakiin kulli aynu adduunkaas kala mid noqonayno oo 17 meelahaas uu noqonayo inay hooyadii uur kale uu ku dhaco macaanka dhiigkarka maalintii habeenkii hore ka hadlaysay waxa tiri midabka madowga iyo meelaha qaar buu gaar u sii yareeyahay macaanku ma la mid baa mise waa isku furan oo meel walba uu ka jira macaankuna horta wuxuu leeyahay isaguna risk factors ama dadka qaar halis ugu jira oo aad ugu sii nugul oo wax laga yaabaa in bulshada oo dhan dhammaan gabadh kasta uur leh aanu ku dhicin oo dad gooniya uu ku dhaco waxaa ka mid ah dumarka aadka u burburan ama hilibka leh cayilan dumarka hidaha u leh bahalkii macaanka dumarka uu hore ugu dhacay iyagoo uur leh macaanku isaguna boqolkiiba dumar 41 ka mid wax laga yaabaa inuu mar labaadka ku soo noqdo waxaa ka mid ah dumar ka yaradaada waaweyn leh waliba inaan odhan yaradaada waaweyn leh dumarka 25 jir ka weyn oo dhan ayuu iyagana ku badan yahay marka la barbar dhigo kuwa intaa ka yar waxaa ka mid ah dumar ka dhala caruurta waaweyn caruur miisaankoodu 4 kiilo ama 5 kiilo iyo wax ka badan uu yahay kuwaasina iyaguna si gooniye halis ugu sii jiraan iyo caruur dumarka uu ilmo ka dhinto ama ha ahaado mid markuu dhashay isla markiiba dhintay laakiin waliba kan aynu ku oran waa riski uu ku jiro ama halis bay u yihiin waa hooyada ilmuhu uurka dhexdiisa uu ku dhinto ilmo dhintay dhasha kuwaas uu ku badan yahay Khaalidow waxaad sheegtay in dhiigkarka oo aynu hore uga hadalay uu dhaco 35 week hadana khaldanayn ama 3 bilood ka dhexe dabayaaqadiisa isagu goormu soo baxaya ama la ogaanaya ama goormu dhacaya horta macaanku isagu shardi ma laha sidii dhiigkarka ah dhiigkarku waxa 20 week wixii ka dambeeya laakiin kan shardi saas ma laha oo inta uurka oo dhan uu iman karaa laakiin haddana macaanka xilliga uurka waxa isagana la helaa 24 week oo noqonaysa bisha 6aad iyo wixii ka dambeeya bisha 6aad wixii ka dambeeya inaga sidii nagu yahay baad Somaliland waxaan aaminsanahay inuu adduunka kala mid nahay oo inagu badan yahay ugu yaraan boqolkii dumar ee eegto inuu 8 ka mid ah hayo ay kala sahlanaadaan laakiin inuu hayn karo maxaa markaa macaankan xilligan dhacaya iyo xiriir ka dhaxeeya macaanka kale ee caadiga horta macaanka xilligan dhacaya isagu uu ka duwan yahay macaankii kale macaankan isaga waxyaabaha keena waxa ka mid ah bahalkii sonkortii la isticmaalay xilliga uurka oo dheecaamadii dheefshiidi lahaa ama jirka u sahli lahaa inuu qaato ay isbedel ku dhacaan hooyadana sidoo inta uurka leedahay waxa imanaya dheecaamo cusub oo ay madheertu soo doynayso kuwaasoo khalkhal geliya dheecaamadii caadiga ahaa ee jirka
kadib kana wuxuu la xidhiidhaa uun xilligaa uurka iyo dheecaamada isbedelaya laakiin haddii la yidhaha xidhiidh ka dhexaysiiya macaankii kale iyo macaankan xidhiidhkan ka dhexaysiin karnaa waxay gabadhan uu ku dhaco macaanka xilliga uurku waxaa laga yaabaa in boqolkii dumaru ku dhacay konton ka midi ay 20 sano kadib ama muddo dheer kadib aduu marka noloshooda xilliga dambe inuu macaan caadi ku dhici karo kii joogtada ama ay halis ugu jiraan inuu ku dhaco intaas weyn xidhiidhka ka dhexeeya gabadha marka hore leh macaanka caadiga ah ee la macaamilaysay ee dabadeetana xilligii uurka isaga shakiday ama loo maleeyayba in uu ku dhacay macaankii xilliga uurka ama maxaa markaa halkaa bal nafahansiin caadiyan waxaan odhanaynaa gabadha macaanka lahayd ee hore u lahayd markay uurka qaado waxba isbedela maxaa isbedelaya waxba isbedelaya ugu muhiimsan waxa weeyaan caadiyan ilmaha markii gabadhu uurka ku sido sidii ay u isticmaalaysay macaanka ama sonkortu wax isbedel baa ku dhacaya oo normala gabadh kasta ay u baahan tahay inuu ku dhaco salaam markii hooyadu cuntada cunto cuntadii si aan iyadu wada isticmaalin ilmihiina ay badh u qaato dheecaamadii la soo daynayay dheebshiidi lahaa wax laga yaabaa inay hoos u dhacaan ama uu jidhkii hooyadu aanu dheecaamadaa u jawaabin haddaba gabadhan bahalkii muxuu ahaa iyadu macaanka hore lahayd waxaynu odhanaynaa inta hore ee uurka intiisa hore waxa laga yaabaa in dawadii ay qaadanaysay in ka yar ay u baahato oo ay u baahatay in dawadii hoos loo dhigo haddii imika qaadanaysay irbadda 40 unit ama 30 unit laga yaabaa inay u baahato wax intii ka yar dee 40 qaadanaysay 20 ama dhowr iyo 30 inay u baahato haddana xilliga dambe ee uurka inay intii uurka ka hor ay qaadanaysay in ka badan ay u baahato marka isbedelka ku dhacaya xagga dawada ayaba iyada ugu muhiimsan oo ay tahay in dhakhtarka ay ku xidhnaato oo kolba dawada xilligaa uurku marayo lagu qiyaaso sidoo kale dumarka qaar qaadanaya kiniinada qaar ayaba iyagana kiniinadii loo odhanayaa bedela oo intay uurka leeyihiin irbad qaata inkastoo imika kiniino badan oo wadanka yaalla iyaga la wadi karo oo la qaadan karo laakiin ama kiniinkii in la kordhiyo loo baahan kara ama in irbad lagu daro inkastoo aad ka dayrisaan bahdiina caafimaadku hooyooyinka soomaalida ama qoysaska soomaalidu badanaa waxaad sheegtaan inaanay si fiican ugu diyaar garoobin xilliga uurka hase ahaatee ay tahay dariiqo caafimaad oo ay tahay in la maro oo hooyadii aabuhu ay u diyaar garoobaan inay uur qaadaan marka hooyadu ay macaan hore xilligii uurka isku aragtay ama macaankii kale caadiga ahaaba ay lahayd ma diyaar garow gaara looga baahan yahay marka ay uurka qaadayso qodobkaas waa qodob aada muhiima hooyada hore u lahayd macaanka tan ku dhacayo macaanka xilliga uurku iyadoo wax la ogaanaya iyadoo bisha 6aad maraysay waxa laakiin hooyada hore u lahayd macaanku waa inay intaanay uurka qaadin ka hor ay dhakhtarka la xidhiidho oo loo sheego inay tahay gabadh qorsheynaysa dhowaan inay uur qaado marka waxyaabaha loo baahan yahay waxa kamid ah tusaale ahaan gabadhan macaanka hore u lahayd waa in la eego keliyaheedii oo macaanku wuxuu saameyn karaa keliyaha wuxuu saameyn karaa wadnaha wuxuu saameyn karaa indhaha kadib waa in intaas oo dhan la eego oo intaanay uurka ka qaadanay intuba yihiin xaalad caafimaad qab ay ku sugan yihiin sidoo kale macaanka jidhkeedu waa inuu yahay isna marxalad control ama la xakameeyey ee aanu hayn wax marna 500 tagaya marna 300 marna 50 iyo 40 u dhaadhacay uu yahay xilli level xakamaysan uu ku sugan yahay kadib uurka ka hor waa in hooyadu shaybaadho badan loo sameeyo waa in loo sameeyo baalkii waa in la eego bahashan la yiraahdo hemoglobin A1C oo ah shaybaadh macaanka ah oo inoo sheegi karo hooyadani dhowrkii bilood ee u dambeeyay macaankeedu sidoo ah kadib hooyada macaankeedu hemoglobin A1C aad u sareyso kale iyaduna waxay halis ugu jirtaa inay dhasho ilmo aan samaysankiisu wax ka siihin saadaradeed waa in hooyadu waxay dhali kartaa ilmo ama wadnuhu daloolo ama dhabarku daloolo ama maskaxda biyo kaga jiraan ama maskaxda wax ka sii yihiin ama caruur inaad aragtay waa laga yaabaa bahalkii caruuraan inta hoose lahayn kuwa dysgenesis wax loo yaqaano I think inaad xasuusto ama dadka qaar xasuustaan mooyaane koobkii adduunka oo kale ninkii furayee aad moodi qaar ka sare oo kale dadka noocaas oo kale ay dhali karaan waxay dhali karaan dad xanuuno kale badan oo lagu dhasho spine bifida waxa la yiraahdaa inuu dhabarku daloolo inuu madaxa laftiisu daloolo ama maskaxdu dibadda taalo kadib si aanay hooyadii u dhalin ilmo xanuun qaba ama iyada xilligan uurka ay qaadayso kaliyaheedii dhaawac badan aanu soo gaadhin ama wadnaheedii ama indhihii waa inay uurka ka hor
ay dhakhtarka tagto oo intaasoo dhan la cabiro oo la yidhaha gabadhii uur waad qaadi kartaa marka ay uurka qaado taasina waxayna tusaa inay gabadhaasi u baahantay inay waxyaabahan lagaga hortago uurka ay aada u isticmaasho ilaa xilli ay diyaar u tahay mooyaane doctor Khalid caruurta dhaawaca ku dhalanaya ama iyaga oo jirkoodii nusqaan leeyahay salaan dhabarku daloolo ama madaxu buuran yahay culimada caafimaadka intooda badan waxay yiraahdaan waxyaalo hooyada marka hore ka dhinaa oo salaan foolka ay sii dhow ay ka mid tahay baa inta ugu badan loo aaniya marka macaankani ma waxyaalihii jirka ilmaha u dhameystirayay qof ahaantiisa buu isaga laftiisu dhaawac u geysanaya say isugu yar xirmayaan waxay isugu xirmayaan horta waxa dhici kara in hal shay ay laba wax oo kala duwan bay keenaan tusaalaaniga macaanku xanuunadan oo dhan ee ilmuhu ku dhalanayo qaab samaysankiisa wax ka sii yihiin sidiisu u keenaya folic acid aad sheegtayna hadday ka dhiman tahay iyadu waxay ku caan tahay weliba kuwan anencephaliga la yidhaha ama dhabarka daloola ama madaxa oo qaybta sare ay maqan tahay iyo maskaxdu laakiin macaankuna sidiisii ayaabuu u wataa laakiin wax labadoodu xidhiidh ka dhexaynaya macaankii folic acid ma jiraan weliba ta ugu badan uu keeno weliba wadankana ku arkay wax weeyaan caruurta wadnuhu daloolo ama wadnahooga wax kale kasii yahay dalool keliya maaha ama xididadu isweydaarsan yihiin oo laga yaabo hooyo macaan liinay mar dhashay ilmo wadnuhu daloolo haddana ay uur qaaday ay dhashay mar labaad waxaan arkay gabadh ilaa 3 jeer dhashay ilmo wadnihi u daloolo intaana haddii ama dhakhtar ku xidhnayd ama si fiican loo daweyn iyaduna mararka qaaraan macaankeeda aada u kaantaroolayn dee caruurtii la dhiban oo meel lagu qaliyo meel lagu daweeyaba lala yahay arrinta inta badan bulshadu wax iska weydiiso caadiyan macaanka dariiqaa loo baadhaa bal xaggaa baadhitaanada nooga war halkaa baadhitaanada horta waa su-aal aada iyo aada u muhiima su-aashaas oo kale imika waxaa wadanka aad ku arkaysaa in loo baadho gabadha uur kale sidii gabadha aan uurka lahayn oo kale taasoo ah mid khaldan haddii aad u baadho sidii gabadha aan uur lahayn heli maysid gabadhan inuu macaan hayeen kale waayo macaankan xilliga uurka la kaantaroolaya wuu ka leefal hooseeyaa macaankii kale glucosteedu ama sonkorteedu way ka hooseynaysaa macaankii dadka kale saa daraaddeed waa in aynu wadan ahaan waa bahalkii aynu wacyigelin badan uga baahanay weliba xagga bahda caafimaadka in loo sheego hooyada ha uga baadhin sidii looga baadhiyey gabadha iyo dee ninka gabadh markaan uurka lahayn iyo dee ragga basaa looga baadho ee gabadhan uur kale iyada si gooniya loo baadha sida loo baadhana waxaa ugu muhiimsan waxaa jira horta laba nooc mar hal step yani jaranjaro keliya baadhitaan keliya la sameeyo iyo mar la sameeyo laba jaranjaro kala dambeeya kadib wadanka mar haddii ay yara adag tahay in qofkii laba jaranjaro la sameeyo wax la isticmaali karaa kaa halka jaranjara laakiin kan labada jaranjaraba waa macquul marka waxa ugu muhiimsan uu kaga duwan yahay baadhitaankii kale waxa weeyaan hooyadii markii kuu timaada aroortii iyadoo sooman iyadoo waxba soo cunin 18 saacadood ku dhawaad ayaad baadhaysaa taa meel baad ku qoranaysaa kadib hooyadii wax macaan baa la siinay ama 75 gram oo glucose oo macaan sonkora oo lagu qasay biyo koob biyo ama 2 koob biyo ayaa qofkii la cabsiinaya markay cabto ama tan 100 gram oo la isticmaali karaa oo labadan ba way jiraan 75 iyo 100 gram marka inta cabsiiso aybaad u qabanaysaa markaa muddo saacad kadib markii cabtay 9kii bay cabtay inta falgal sameeynayo 10 subaxnimo la baaraya waa saacad kadib haddana 2 saacadood kadib haddii 100 marka hore la siiyay saacad saddexaadna waa lagu daraa oo 3 saacadood ayaa la cabiraya iyo markii hore aynay waxba cunin 4 saacadood markaad cabirto afartaa jeer mar aanay wax cunin iyo saacad kadib markii waxa macaan cuntay 2 saacadood kadib 3 saacadood kadib haddii laba mid ka mid ah hesho in intii loogu talagalay ka yara sareeyo waxaan misaawiyeen macaankii ayay leedahay haddii aad 75 gram siisayna haddii hal saacado kaliya hal shay oo kaliya uu ka sareeyo intii loogu talagalay waxaan macaankii baad leedahay laakiin haddii hooyada waxa macaan aanad siinin ee aad eegto uun randomka kan la yiraahdo xilliga uu qofku yimid uu la eego kuma soo saarayeen gabadhani macaan leedahay haddii la eego kaliya ta kan iyadoo aan wax soo cunina iyadana kuma sheegayeen gabadhani macaankii xilliga uurka ay leedahay marka waa in horta saa loo kala saaro dhakhaatiirtu way garanayaan cut points waxba la isticmaalayo waayahay haddii dhakhaatiirtii garanayaan
caafimaadka qofka in badan baa dhakhaatiirtu ay canaantaan bulshada oo ay yidhaahdaan dawadii si fiican looma qaadanayo sida lama sameynayo xilligii soo noqon la yidhi lama soo noqonayo bulshada ayay eedeeyaan in badan oo ka mid ah bahda caafimaadku dabcan waxbaa ka jiro oo waa laga yaabaa in qofku ama uu sahashado ama aanu dhakhtarku siduu doonayay u macaamilin haddii uu jiro habraac cilmiyeysan oo kanad ka sheekeynaysa ah arrintaa eedeeda soo bahda caafimaadku ma yeelanayso bahda caafimaadka yeelanaysa bahda caafimaadkana waa kuwan aynu u sheegayno gabadha markaad macaan ka baadhaysaan inaad waxaa macaan marka hore la siiyo oo iminka muddo ka hor markaan waddanka yimid sabab bilaabay inaad siiyo wax macaan dadka qaar way kula yaabeen gabadha waxay kuranaysaa intaasoo jeer baan uur qaado macaan layga baadhay weli waxaan macaan layma siinin dee maadaa waxaad baadhaysaa muxuu yihi jeebadaad kala soo baxday jeebadaad kala soo baxday laakiin sababta loo isticmaali waayey ma garanayo waayo waa wax fudud laab kastana yaala laakiin waxaa la isku yara qabsan jiray sonkortan la siinayo xaggaynu ka keenayna laakiin taana xalkeedu wuu fudud yahay oo waxaa jira waxyaabo xisaabsan yani inaad xisaabiso waxaana siisay inuu 100 gram yahay iyo inuu 50 gram yahay waa inaad garanayso macaankii aad qofka siinaysay ayaba malaha hadii la isoran jiray lama xisaabin karo taana waa wax fudud oo la xisaabin karayo laakiin meelaha qaar bilaabay baa jilay mikasan sameeya laakiin iyaguna waxay weli sii khaldan inta xadiga sonkorta qofka la siinay meelaha qaar baan arkay ku xidha kaanule oo glucose ilaawahan u siiya waxbad glucose siiya ama laba mid taasna wax ka dhigantay gabigeedu ayna siisay 10 gram marka waxaan ku talinaynaa inaan la siin dadka qaar waan arkay xataa afka laga siiyo laakiin la siiyo 3 xabo 4 xabo kuwan caagadaha yaryar ku jira taasina ma noqonayso 75% ma gaadhayso kadib waxaan leenahay in xisaabtana la iska soxo aynu tanna raacno insha Allah waxaan rajaynayaa insha Allah aniga iyo bahda kale xanuunada dumarka ka shaqeysa takhasuska ulahiba inaanu soo saarno habraaci dhawaan anagoo wasaaradda caafimaadkana la kaashan doona taasoo ay khasab noqon doonto qofka macaan ka baadhaya gabadh uur leh inuu habraaca u raaco dilaayna ma ka baadhitaan sahlan tahay ama ma ka baadhitaan duwan tahay hooyada ama markii uurkii hore ay qaatay laga helay ama macaankii caadiga ahaa lahayd sidee yani ma ka baadhitaankan ma ka sahlan yihiin kale miyay kala duwan yihiin way kala duwan yihiin oo gabadhan waa gabadh raadinayso inay leedahay macaan xilliga uurka oo aan shaki hore jirin oo aan shaki hore aan macaan hore lagu ogeyn laakiin gabadha hore macaanka uu leeyahay inaad baadhaba wax saas soo kordhinaysa dee ma ay macaan bay leedahay niyada la daweeyo laakiin waxaa jira laba xilli soolaan xilligan la isticmaalayo waxaan macaan la siinaya waa goorma waa 24 week iyo wixii ka dambeeya laakiin haddii aad baadhitaanka samaynayso 24 week ka hor sidaad u samaynaysaa waxaan macaan waad siin kartaa waxaad baadhi kartaa sidii gabadhaan uur lahayn marka waxaa jira laba maskaxood oo iska oo bahalkii la isticmaalay adduunka ama lagu murmo taasoo ah gabadh kastoo ku timaada miyaad ka baadhaysaa macaankii mise dumarka qaar ayaad baadhaysaa wadamada qaar uu ka mid yahay Mareykanka iyo Yurub oo kale iyagu waxay sameeyaan universal screening ama in gabadh kasta ay ka baadhaan macaankan inay leedahay laakiin wadamada qaar resourcesku ay ku yar yihiin dhaqaale ahaan ama dee awood ahaan la baari karin gabadh kasta oo uur leh waxay baadhaan dumarka qaar dumarkan la baadhayana waa kuwa halista ugu jira sida hooyo miisaankeedu aad u badan yahay ama cayilan hooyo hore u lahayd baalkii macaankii xilliga uurku hore ugu dhacay hooyo ilmo meeyda ama ilmo dhintay dhashay hooyo baalkii ilmo weyn miisaankiisu weyn yahay dhashay kuwaas iyaga marka ugu horeysay uur qaadaba waxaad u samayn kartaa inaad baadho oo nid sugu wiigi 24 marka hore ma baadhay haddaad ka weydo kadib wiigi 24 ba baadhaysaa laakiin haddii marka hore aad ka hesho dee dawadii ayaad markaa u bilaabaysaa way waxaad carabka ku dhufatay goordhoweyd mashaakilaad haddii aan si fiican loo xakamaynin loola soconin loola daweynin hooyada uur kale ilmaha caloosha ugu jira uu la kulmi karo oo heer naafanimo gaadhsiisan ama xaalada caafimaad oo waaweynba waxyaalaha kale ee macaanka la sheego inuu u geysto ubadka caloosha ku jira waxa ka mid ah in ilmaha miisaankiisu aad u kordho oo ay weliba hooyooyinka Soomaalida in badan oo kamid yihiin waxyaalo kale u aaneeyaan oo salahan barafka oo kale uu kamid ka yahay dhiikarku waxa tiri hore aad u sheegtay inuu kojiyo ilmaha caloosha ku jira oo uu miisaankiisu lumayo kanna waa kan cayilinaya bal halka xigmadda ku jirta nafaasiin
halkaa xikmadda ku jirtaa waxayn horta waxaan la yidhaha siduu xanuunkani u samaysmayo ayaa kala duwan oo iminka kan dhiigkarka ee ilmuhu yaraanayo ama korriinkiisu laga yaabo inuu yaraado inta uurka ku jiro cilladda ugu weyn waxay ka jirtaa xagga xididada iyo dhiiggii ilmaha gaadhayay nafaqadii gaadhaysay oo yaraatay kadib aanu ilmihii dee korriinkiisii u yaraanaya laakiin kan macaanka waxaa aada u badan bahashan la yidhaha insulin ama dheecaankan macaanka burburiya kadib dheecaankaasi markuu bato ilmihii wuxuu keenaa inuu habdhiskii bahalkii muxuu ahaa maxaa la yidhahdaa uu qofku u isticmaalayo cuntooyinka ha ahaato wax macaanka ama sonkorta iyo waxyaabihii kale o dhan wax isbedeli ku dhaco soo kale insulinta lafteedu waxay ka qayb qaadataa korriinka inuu ilmaha yari koro iyada lafteeda growth hormone oo kale laga yaaba in ay ishabahaan kadib waxyaabuhu ku keeni karo ilmuhu intaa kuma koobna waxa ugu muhiimsan inuu ilmuhu weynaado oo 4 kiilo 5 kiilo noqdo kaasoo isna halis ugu keenaya hooyadii ama inay fooshii ku dhibaataysanto ama inay qallin u baahato ama markay dhalayso ilmaha in ay dhaawac kale xubnaheedii kale jirka gaadhaan kuwii naafada ilmaha ka dhigayayna wayn sheegnay waxaa kaloo ilmaha gaari karto iyaduna kamid waxyaabaha ugu badan inuu ilmaha yari suu u noolaayo hooyadu dhaqaaqiisa u dareemaysa inuu mar keliya uu dhaqaaqii joojiyo ilmihii yaraa dhinto weliba waxay caruurtaasi dhimataa bisha 7aad 8aad dhammaadkeeda unbaa la odhanaya hooyadii ilmihii shalay uu noolaa laakiin maanta markii computer la saaray ilmihii uu dhintay sidoo kale waxaa jira dhibaatooyin iyaguna ku dhacaya ilmaha markuu ilmaha yari dhasho kadib kuwaasoo ay ka mid tahay in glucosetiisa ay hoos ay mar kasta hoos u dhacdo oo uu baahdo 2-3 cisho hore in macaan badan la siiyo kolba glucosetiisii la cabiro inay calciumtiisu hoos u dhacdo inuu huruud noqdo u baahdo in iyo meelaha la geliyo baalkii loo yaqaano muxuu ahaa abaydinka lagu koriyo waxaa aada looga dayriyaa hooyadu markay matalan dhiigkar leedahay diyaar garowgeeda dhinaca foosha iyo umulinta iyo waxyaalaha la midka xaaladeedana sidaad uguba sheegtay in aada loola socdo ayay ahayd ka waran hooyadii macaanka lahayd hooyada macaanka lina sidaas oo kale horta waxaan u kala saarnaa macaankii ay lahayd uurka ka hor gabadhii lahayd iyo gabadha uu macaanku yimid uun xilliga uurka ay leedahay labadaba isbedel baa ku dhacaya xilliga ay ilmahu dhalanayo keliyata maahe intay uurka leedahay oo dhan tusaalehaan waxaa jira wax la yidhaha somaliland ay leedaho daryeelka hooyada uurka leh la siiyo kadib hooyadan macaanka lihi daryeelkii hooyada uurka loo keliya ma qaadanaysa daryeelkeedu wuu ka duwanaanaya hooyooyinkii kale xaaladeedii baa gaara kadib waxaa laga yaabaa hooyadani inay u baahato inay intii hore in ka badan ay dhakhtarka u timaado oo dee glucostedii ama macaankeedii la doonaya la kantaroolo waxay hooyadani u baahnaanaysaa saas oo kale in ilmaha yari markuu marayo meelaha 4 bilood iyo badh meelaha in computer la saaro si fiican qof khabiir u eego la eego inay xubnihiisii dhammaystiran yihiin ama inay wax naafanimi ay ku jiraan soo kale hooyadan waxay u baahanaysaa markuu ilmuhu gaadho bisha 7aad in si wiigla ah computer loo saaro ama bahal CTG la yiraahdo wadanka meelo kamid yaala in la saaro taas iyadana aynu kala qaybino laba hooyo macaankeedu xakamaysan yahay iyo to aan xakamaysnayn to xakamaysan yahay iyadu ma baahanayso week kasta in la eego iyada labadii week mar ay leegi karaa laakiin taanu macaankeedu xakamaysnayn ee kolba kacayo iyadu waxay u baahanaysaa in week kasta ugu yaraan mar ama 2 goor in la eego waa si wanaagsan waxaan jeclahay markan bal hadda in aynu dhinacii su'aalaha dadweynaha aynu dhinacooda milicsano waxaan jeclahay intaanan dhinaca WhatsApp-ka u gudbin in dhinaca telephone line-ka aan dadweynaha inta daawanaysa barnaamijka jecel inay su'aalo macaanka ku dhaca ama macaanka xilliga uurka hooyadu ay leedahay dhaca su'aalo ka qabtay inay soo weydiiyaan waxaan ka codsanayaa daawadayaasha in ay su'aalaha ku ekeeyaan macaanka iyo hooyadu xilliga ay uurka leedahay sidoo kale waa soo weydiin kartaan su'aalo ku saabsan dhiigkarka laftiisa xilliga uurka dhaca haddii aad su'aalo ka qabtaan qofka koowaad ayaan jeclahay farsamo yaqaan Jimcaale aw Cali oo gacanta ku haya in uu khadka telefoonka haddii ay suurtagal tahay su'aashiisa u soo gudbiyo dhakhtarka halo assalaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullah walaal soo dhawow codkaagana kor u yara qaad magacaygu waa Warda way inta si fiican may maqlaysaa
waxaan joogaa Gabiley. wardaay walaal adoo raaliya codkaaga si fiican uma maqlayo codka ku yar qaad haye imika qabal si fiican ma ku maqlayaa imika magacaygu waa Warda waxaan joogaa Gabiley. waay waxaan doonayaa tisoorka inaan weydiiyo ilaahay taxadaaga siyaadiye isagaba amiin waxaan doonayaa inaan weydiiyo bal wuxuu yidhi inay hooyada macaankeli waxay dhali kartaa ilmo yar waaweyn waay marka doctor taasoo kale aan ahay laakiin iskamana baarin bal sidii dhiigkarkoo kale calaamado lagu garan kara ma leeyahay adoona isbaarin waay waad fahantay waan filayaa hooyada su-aasheeda ها هويدا waan fahmay oo wax weeyaan hooyaduni waxaan filayaa inay dhashay xaruur waaweyn oo 5 kiilo ama 4 kiilo wax ka waaweyn macaan iskuma oga haddii aan isbaadhin horta waxaan ku talinaynaa in isbaadho waay laakiin sidoo kale waxaynu sheegaynaa researcheskani inay ka yara duwan yihiin ay laga sameeyay wadanka dibadiisa oo imika markaad yara eegto dhan hooyooyinkeena inaka badankoogu inay dhalaan 4 kiilo caruur yara waaweyn ay dhalaan iyo si dabiiciya marka laakiin inakoo le si dabiiciya way dhici kartaa laakiin haddana waxaan soo jeedinaynaa macaankii la iska baadho la iska hubiyo laakiin hooyo kastoo ilmo cayilan dhashaa lama oran karo macaan bay leedahay lama odhanayo laakiin calaamado wax calaamado uu leeyahay oo aynu oran karno calaamadaas uu leeyahay ma jirto calaamada waxaan igu filan calaamad inaad ilmo weyn dhashay ama in la yiraahdo ilmaha biyaha ku bata ma maqashay marka qaar haddii la yiraahdo ilmaha biyaha ku badan ama biyaha ku lamaan ama ilmo weyn bay dhashay labadaas aba calaamada ku filan laakiin calaamado kale oo ay hooyadan yeelanayso ma jirto waxaan filayaa Warda iyo inta kale la xaalada ahiba inay su'aasha ka faa'iideysteen qofka xiga ayaan jeclahay inaan khadka telefoonka uga faa'iideeyo assalaamu calaykum hello calaykum salaam soo dhawow waa barnaamijkii caafimaadkaad soo gashay telefishinka qaranka soo maqli maysid ma maqashaa walaal hello way daawadahaas isagoo aan su-aashiisa ka bogan ayuu khadka telefoonku ka go-ay qofka xiga ayaan jeclahay inaan uga faa'iideeyo assalaamu calaykum hello walaal soo dhawow barnaamijkii caafimaadkaad soo gashay waan dhawahay waay magacaaga inantii hore weyn garmata waay waa kii yidhi inay xaaladda dhiigkarka waad ka weydiin kartaa waa laga yidhi waay marka dhiigkarka waqtigeedu caynka 2 sano ka hor irbado kululoo kalaa la isticmaalay waay ilaa imika dhulkii way xanuunaan macaadi waadii soo taasi mise wax qalada jira waay halkii waxaan filaynaa gabadhan uu ku dhacay dhiigkar iyadoo uur leh say sheegtayna sanada ko 2 sano ka hor dawooyin kululna la isticmaalay oo ah dawooyinka lagaga hortago suuxdinta oo dawooyin aad muhiim ah oo ay tahay khasab in gabadha dhiigkarka leh xilliga uurka la siiyo haddii weliba uu dhiigkarkeedu aad u daran yahay laakiin dhulkii lagaga muday muddo sii xanuuno waa macquul dee week 2 week 3 week baa xanuuno laakiin inuu bila kadib weli xanuun meeshii ka jira walkii wax sax dee normal ma wax caadi ma maxaa marka la gudboon marka wax la gudboon dhakhtar tusto oo la eego horta waxaan meesha ka jira muxuu yahay cidii mudday oo kale inay dee ama cidii mudday ama cid kale way tusi kartaa oo irbad lagu muday qofku dee wixii doonto dawadii doonto ha ahaatee bilama muddo kadib haddii hataa ay sii jirto waa inaanay ahaan wax dee sanado qofku xanuunkiisii sii hayo dhinaca whatsappka ayaan markan jeclahay inaan milicsado Khalid nin la yiraahdo ayaa wuxuu inoo soo diray su'aal uu leeyahay macaanka waxa bahda dhakhaatiirtu sheegaan inuu xanuuno kale keeno oo uu dabada ku wato dhiigkarka oo kale haddii hooyada uu ku soo noqnoqdo macaanka xilliga uurku ma sahlanaanaysaa inuu dhiigkarna ku dhaco halkii markii hore waxaanu sheegnay dhibaatooyinku macaanku u keeno ilmaha laakiinse waxaa jirta dhibaatooyinka uu u keeno hooyada inaynu iyagana eegno hooyada macaankani uu ku dhacay xilliga uurku waxyaabaha ku dhici kara waxa ugu horeeyaba dhiigkarkii xilliga uurka inuu isna yimaado soo kale waxaa hooyadan ku dhici karaa inuu ilmaha yar la yidhaha biyaha ku badan labadaas xaggood markaa hooyada dhiigkarka ku dhici karaa dhiigkarka xilliga uurku isaguna wuu iman karaa laakiin xanuunadii kale macaanka kale la xidhiidhay soolaan hooyada inuu kaliyaheeda waxyeelo ama wadnaheeda ama indhaha ama cagaha oo la yidhaha cagaa la jaraya iyo waxaas heerkaa ma gaadho heerkaa waxaa gaadhsiinaya macaankan kale wax weyn dee sanaduu qofka jirkiisa ku jiraya laakiin macaankan mar hadduu yahay muddo kooban oo 3-4 bilooda
waxba xubnaha kale jirka ma soo gaarsiinay waxa iyaduna su'aal soo weydiisay inaan magaceeda Yasmiin ku soo koobtay gobolka Sanaag baan joogaa bay tiri muhiimad intee leeg bay hooyada u leedahay macaanka leh inay ubadka kala koriso horta ubadka la kala korinaya dee hooyo kasta sideeda iyo doorashadeeda ayay ku xidhan tahay sideeda ay ugu fiican tahay laakiin hooyada macaanka leh ahmiyadda koowaad ay leedahay wax weeyaan waa in aanay uur ka qaadin iyadoo macaankeedii ciladi ka jirto horta waxaa jira hooyooyin qaar loo oranayo looma ogolaba inay uur qaadaan aan gebigaba loo ogolaanin tusaale ahaan hooyo keliyihii fadhiisteen macaan daraaddeed creatininteedu ay ka badan tahay 2.5 laba iyo badh hooyadaas oo kale wax ku odhanaa ha qaadin uur waxba qaadin totalis hooyo indhaha araggii beeshay macaanka dartii ama araggii naaqusmay iyadoo wax la odhanaya uur ha qaadin hooyo wadna xanuun yeelatay ama pulmonary hypertension waxaa la yidhaa uu gaadhay intuu wadna xanuunkeedii soo sii socday kuwa wax la odhanaya uur ha qaadina kadib hooyadii si loo yidhaahdo waxaad maraysaa marxaladaad uur qaadi karto si loo yidhaha macaankaagii uu kaantaroolan yahay ama uu xakamaysan yahay oo lagama yaabo inaad dhasho caruur dee dhaawac ama dee aan samaysankoodii dhammaystirnayn hooyadu waxay u baahan tahay inay muddo ay isticmaasho kala koriyaha ilaa xaaladeedii caafimaad ay u diyaar garoobayso uur waad mahadsantay dhinaca telefoonka ayaan jeclahay inaan ku noqdo haddii uu jiro qof su-aal la diyaara oo khadka telefoonka ku jira aan soo dhaweeyay halo asalaamu calaykum halo jeclahay inaanan ismaqli karin aad baan uga xumahay waxaan jeclahay in telefoonka ciladii ku dhacday qofka ku xiga ayaan jeclahay inaan uga faa'iideeyo anoo idinka raali gelinaya haddii dhawaqa telefoonkaasi sameeyey uu idin soo gaadhay markan iyo qofka khadka telefoonka ku jira intaanan dhinaca whatsappka u gudbin halo asalaamu calaykum halo walaal may maqlaysaa halo ها سودو برنامج كعافمات كات سوق الشيء هذا نلا سعودي مقعاقة يسوع إيش هذا يسرعسو حاتر ولا أمون وقت سودو وين وايه وقت سودو وين يا سؤال شرا وايه محمد سؤال بعد هاي سامد أها وانكم مقلة يا ولا سفي عن سؤال هذا ها هي ها واي المير واي واي مسجر شانشير كمان هو دلهم باتري marka horena ma hay way way marka ma dhici kartaa baad leedahay arrintaasi way labadii jeer baa lagu xaqiijiyey واي خالد واد ما تصنت ولا واي bahalkii imsoo ku soo baxa carruurta macaanka horta macaanku waxay ku xiran tahay xilli ku dhacay oo macaanka ma keenaan kaliya waxaan aynu raahno type 2ga iyo type 1ka macaanka noocan koowaad oo kale la yiraahdo hiduhu bahalkii macaanka noocan koowaad la yiraahdo jirka istilaya ama wax isyeelaya soo kale wax keeni kara infection sida ay gabadhu inoo sheegtay inay xumadii jirtay oo kale waxa laga yaabaa in infectionada qaar ay ku dhacaan ganaca saameeyaan oo haladii soo saarayay insulinta weeraro ama dhaawac gaarsiiyo infection kan dartii kadib ilmo yaraw macaan qofkii bini'aadanka uu macaan ku xilliga doono uu ku dhici karo laakiin mar haddii la yidhi uu jiraa iyo ma jiro waxa dhici karta qofka marka macaan laga helo markii koowaad inuu markaaba jirkiisu dib isku kabo oo muddo laga waayo uu haddana gadaal mar dambe uu ka soo baxo soo kale waxa dhici karta inuu ahaa wax transient oo xilligaa xanuun ku jiray baalkii xumada ama waxa kale jireen inuu macaankani joogay marka dambe iska tago kadib waxaan ku talinaynaa
oo hawsha igaga fiicnaanay inay wax ereyo badan ka yidhaahdaan dhakhaatiirta ku takhasusay xanuunada caruurta marka in dhakhaatiirta takhasuska caruurta leh ay la kaashato oo ay dhakhaatiirta u tagto hooyo kale oo samsam la yidhaahdo ayaa waxayna soo weydiisay inta aanan uur qaadin maadaama macaankiisu ku ogahay maxaan samaynayaa intaanad uur qaadin waxaad samaynaysaa dhakhtar bad la xiriiraysaa internal medicineka dadkan bartay ama interniska la yidhaahdo waxaa la eegayaa indhahaaga horta indhihii waa in la eego dhakhtarka indhuhu eego uu eego inay kusoo socoto indha xanuunkii xilliga dadka macaanka qaba ku dhici jiray oo haddii uu kaasoo kale meel halisa gaadhay dee gabadhii la odhanayo uurkiiska daamo marka hore lasii daweynaya uurka ka hor waa in la eego keliyihiisa ay u shaqaynayaan iyo keliyaheedii ma dhaawac baa gaadhay mise mu gaadhay waa in la eego bahalkii wadnaha shaqadiisii wax ciladii miyay jirtaa mise ma jirto intaasba waa in lasii eego uurka ka hor oo ay dadka xanuunada guud ama xanuunada ku takhasusay ay la xidhiidho kadib ay markaa uurka iyadoo diyaara ay qaado inan kale ayaa iyaduna waxay whatsappka inaga soo weydiisay caashaa la yidhaahdaa isbedelada aada carabka ku dhufatay bay tiri ee lagu samaynayo dawada maxaa xikmad ku jirta isbedelka lagu samaynayo dawada tusaale gabadha hore u lahayd baalkii macaanka ee uur markay qaado dawada wax laga bedelayo waxa xikmadda ugu muhiimsan ee ku jirta waxayaan horta ujeedada koowaad ee loo socdaa waxa weeyaan in macaankan lagu ilaaliyo level ama la xakameeyo taasoo levelka lagu ilaalinaya ay su'aali ka imanayso imisa hooyadan lagu ilaalinaya dhiigeeda waxa la doonayaa hooyadani aroortii markay soo kacdo inuu 60 ilaa 90 u dhaxeeyo markay wax cunto saacad kadib inuu 140 iyo wax ka hooseeya noqdo 2 saacadood kadib inuu 120 ama wax ka hooseeya uu ahaado kadib si loo maamulo loo xakameeyo macaankeeda ayba dawada loo bedelay dawada la bedelayana haddii ay irbada qaadanaysay wax laga yaabaa iyada in la kordhiyo in marka hore la dhimo haddana gadaal marka uurku waxoogaa socdo in la yara kordhiyo soo kale kiniinka dadka qaar baa aaminsan ama guidelineska nidaamkan dadka loo daweeyo qaarkood baa aaminsan gabadhuba hadday uur leedahay kiniinka gebigiisa ka daayo waxaad isticmaashaa irbad laakiin imika sanadadan u dambeeyay waxa la isku waafaqsan kiniinka laftiisu uu wax tari karo laakiin loo baahan in la kordhiyo ama kiniinada qaar xilliga uurka aan la ogolayn in la qaato oo ilmaha dhaawac gaarsiin kara laga joojiyo oo loo bilaabo kuwa aan waxba gaarsiinayn ilmaha aad baad mahadsan tahay waxaan rajaynayaa in bulsho fara badan oo weliba hooyooyin u badan oo qoysaskoodu ay su-aalo badan ka qabeen macaanka xilliga uurka dhaca iyo dhibaatooyinka ku hareereysan iyo siyaabaha loola tacaalaba inay ka faa'iideysteen iyada oo ay xiliyo kalena dib uga daawan karaan baraha bulshada ee telefishanka iyo shaashada lafteedaba oo lagu celin doono gabagabadii barnaamijkeenu khaalidow joognaa adoo soo koobaya maadaama bulshada dee dhibaatadani haysato aynu ka mid nahay maxay tahay fariintaada fariinta ugu muhiimsan ee aan diraynaa waxa weeyaan waxaanu diraynaa bahda caafimaadka ta koowaad waxa weeyaan hooyo leh hooyooyinka halista ugu jira macaanka oo eelay waxyaabaha risk factorieska inay ka baaraan macaan marka ugu horeysa iyadoo uur la ay arkaan kadib haddana wiilka 24aad marka la gaaro in loo sameeyo oral glucose tolerance test wax la yiraahdo waa in hooyada waxaan macaan la siiyo kadibna saacad kadib dhowr saac 2 saacadood 3 saacadood kadib la eego ee aan loo baadhin hooyada sidii gabadh bahalkii aan uur lahayn oo kale mar labaadka waxaan ku talinaynaa gabadh kastuu ku dhacay macaan xilliga uurku markay umusho kadib iyadoo waa in bahalkii dawadii laga joojiyo horta badanaa dawadaas maalin kadib markay umusho waxba ugama baahato laakiin hooyadan waa in loo sheego markay 4 baxdo 6 wiig ilaa 12 wiig adoo ilaa 3 bilood kadib in mar la baaro haddii wax cilada la waayo in 3 sanaba ugu yaraan ay mar isbaadho haddii ciladii kale la helana in haddii macaan la helana la daweeyo haddii kalena bahalkii kolba la baaro ismiis hooyada macaan ku dhacay xilliga uurku waa inay waxay message-kaasi uu noqonayaa uurka kadib waa inay kolba macaankeedii yara jeegarayso soo kale waxaan ku talinaynaa bahalkii muxuu ahaa hooyooyinka hore u ilmo wax uga yeelay macaanku waa inay si gaara iyagu dhakhtarka u sheegaan ilmihii wuxuu yeelay oo hooyadaas wax laga yaabo dadku isku wada mid maaha inay uga nugushahay hooyooyinka kale macaanka saad daraadeed iyadoo ay u baahan tahay in glucose-teeda aada loo xakameeyo
marka message-ka guud aynu diraynaa aad baad mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa daawadayaal Dr. Khalid Xasan Cabdilaahi Beergel oo xanuunada dumarka iyo dhalmada ku takhasusay inalana wadaagay fariimo ku saabsan xanuunka macaanka gaar ahaan macaanka dhaca xilliga uurka aad baan dhakhtarka ugu mahad celinayaa in uu inala wadaagay laba toddobaad ka hor fariimo fara badan oo ku saabsan dhiigkarka xilliga uurka caawana uu halkan inagula wadaagay fariimo ku saabsan macaanka dhaca xilliga uurka Dr. Khalid bulshada u baahataa waxa ay ka heli kartaa isbitaalka Adnaadan iyo xarunta Beergel Clinic oo ku taala xaafadda Xeraawr ee magaalada Hargeysa